xafiiska ilaalinta deegaanka kaymaha horumarinta macdanta iyo tamarta ee deegaanka Soomaalida oo ka duulaya qorshayaashiisa ayaa 7,000 oo midh oo soolarka cadceedda ku shaqeeya waxa uu diyaariyay 32 degmo oo lagu soo xulay inay ka jiraan layr yari si looga faa'iideeyo bulshada danyarta ee gobahaas ku nool ayna u yareeyaan shidashada dhirta iyo waxyaabaha qiiqa keena. Adeegan soolarka guryaha ayaa maanta lagu wareejiyay qaar ka mid ah degmooyinka loogu talagalay adeegan. hadda waxaan la wareegnay 204 soolarada waxa weeye cadceedda loo dhiga kuwaas oo dadka loogu talagalay dadka baadiyaha ay qiiqa shidan jiray inay ka baxaan hoosoliyada baahiyeysna qiiqa inta badan qoryaha habeenkii iftiin ka dhiganay in laga baxo loona isticmaalayo in maalinkii cadceedda soolarka oo qaadanayo habeenkiina la isticmaalayo sidoo kale wuxuu leeyahay charger iyadana telefoonada lagu chargeeysan light kale oo dheeri oo guriga xataa laga soo leelmin karo leeyahay marka waa 204 xabo kuwaas oo loogu talagalay dadka baahiyeysan ee baadiyaha in la gaarsiiyo annaguna kolkan degmada aan geeyno si fair ah waxa qabale walba inaan gaarsiino yaan rajaynayna haddii la yiraahdo xafiiska environment-ga ama ilaalinta deegaanka maanta waxaan ka gudoonnay adeeg aad u fiican sidaan wada ogsoonay bulshadeenu waa xoolo dhaqato danyar ah isla markaana aan haysanin adeeg leed ama waxay ku iftiinsadaan hadda waxaan la soconaa dhinaca waxbarashada kale waxbarashadii in la tageeyay isla markaana imtixaanada qishkaha la joojiyay haddana bulshadeenu ama dhalinyarteenu ay caqabad ka haysato dhinacii akhriska waxbarashada soolarka markaa wuxuu faa'iido badan uga yeelanayaa haddii la yiraahdo hadday noqoto dhinaca waxbarashada hadday noqoto dhinaca iftiinka kale run ahaan waa mid bulshadeena anfacaya isla markaana dadka danyarta ah ee aan awoodin iyagu waxay iftiinsadaan inaan u qaybino insha Allah. Injineer Xamdi Axmed Cumar wasiir ku xigeenka xafiiska ilaalinta deegaanka kaymaha horumarinta macdanta iyo tamarta ee deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta deegaanka la wadaagay warbixinta adeega soolarka ay bixinayaan. wuxuu ahaa adeegani mid ka mid ah qorshayaashii u yaala xafiiska kaasoo aan focus ka saarayna macnaha sidii lagu gaarsiin lahaa adeeg lagaga maarmo adeegan imaka ay isticmaalaan traditionalka kan keena inay goostaan geedihii qoyana inay xaalufin dhulkii ay ku keenaan adeeg noocaas oo ay isticmaali jireen markii hore bal adeeg ka duwan inaanu demonstration ahaan si tusaale ah pilot project ahaan baan ugu talagalnay mashruucan marka 8,000 oo qoys oo meelaha off grid ka baxsan electric meelaha u gaaray yaan ugu talagalnay marka qoonda ahaan sanadkan waxaanu feeska koobaad gaarsiinaynay wuxuu ahaa 32 degmo. Injineer Xamdi Axmed ayaa isagoo ka hadlaya qorshayaasha xafiiska ilaalinta deegaanka waxa uu carabka ku dhuftay arrimaha shidaalka deegaanka waxa uu yiri shidaalka horta taariikh dheer buu lahaa dalkeena taariikhdaas dheer uu lahaana wuxuu ahaa mid ku saleysan inta badan geopolitics ayuu inta badan xiriir la lahaa nabadda iyo colaadda iyo deganaanshaha iyo wax badan buu qayb ka qaadanayay marka technically markii aan soo laabto dalka Itoobiya 5 meelood buu leeyahay shidaal oo laga raadin karaa marka 5 meelood waxa ugu muhiimsan waa deegaankeena oo ugu baaxad ballaaran blogya marka loo qaybiyaa marka 22 blog ayuu deegaankeena u qaybsan yahay iyo adigaalo oo dheeri ku ah xaaladda ugu dambaysa oo deegaankeena uu marayo waxa weeyaan shirkado dhowr ah ku jira ilaa 6-7 shirkadood baa ku jira 6-7 shirkadood qaarkood shaqooyinkii meena bilaabeen si rasmi ah qaarkoodna way ku dhex jireen waxa ugu muhiimsan waxay ahayd maalintii dhammeeyay warbaahintu ay sheegayso sida khaldan u tibaaxday oo ay yiraahdeen abid shidaalkii ugu badnaa oo la helay 1.6 ay dhaheen warbixintaas way jirtaa waa run waa la helay laakiin ma aha kii ugu badnaa haddana wax la helay maanta ma ahayn waxay ahayd 2 sano ka hor